Samadin Media Channel. waxaa runtii waa munaasabad aad u weyn intayada martida ah dad badan oo marti oo qoladeeda xukuumadda kaliya martimanina dad badan oo marti oo meelo kala duwan ka yimid waa halka maraysa intayada martida madaxweyne ku xigeenku u mudan yahay xaaji maxamed siciid ducaale odayga shirkaddan iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda shirkadda dahabshiil group dhammaantiin baa waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu boqorrada iyo salaadiintu martiday ka mid yihiin haddii aan carabka ku xejin waayey iyay moodin inaan hoos u dhigay halkana hadallaan ka maqlayay mar dhoweyne waxaan leeyahay waa munaasabad aad u weyn wixii wanaagsan ee ummad ahaan inoo soo kordhaa inaynu ku faraxno ayaa waajib ah cidda samaysana inaynu ku bogaadino ku hambaliyeyna ayaa inoola gudboon ilaahaynu uga barino inuu barakeeyo inagana guud ahaan inoo barakeeyo ummadda wanaagsana gobtahay waxa wanaagsan way ku faraxdaa horumarkeedana way jeclaataa dhibaatada ku timaadana way wadaagtaa dhaqamadaas waxa ka mid yihiin kuwa aynu u baahannahay ummad ahaan inaynu dhiirigelino xaasidnimada iyo xiqdiga iyo isxoqa iyo xumaantu waa dhaqamada xun ee ummadaha dumaya burburaya calaamadaha u ah ummadaha midnimada iyo wadajirka iyo wax isla jeclaanshuhu dhaqamadooda ka mid yihiinna waa ummadaha koraya qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan ilaa iyo nebi aadan baa la soo abuurnaa ummadaha dhismayana waa la gartaa kuwa dumayana waa la gartaa waa bogaadinaynaa shirkadda dahabshiil group horumarkan ballaadhan ee ka samaysay guud ahaan dalka iyo dunidaba si gaara maanta aynu halkan hudheelkan weyne qiimaha leh magaalo madaxda gobolka saaxil ku soo kordhay aynu u joogno aad iyo aad baanu u bogaadinaynaa waa loo baahnaa hudheelkan magaalada berbera waa looga baahnaa kuwo kaloo badanna waynu uga baahan doonaa waayo halkani waa marsadii qarankan weeye waa marsada qaranka somalilan waa meeshaynu doonayno inaynu dunida oo dhan waxu marino qaaradda afrika in badan oo ka mida waa meeshaynu doonayno waxaynu marino inaynu qurxino iyo inaynu weel weyn u tolano iyo meel dunidu ku soo degto iyo meel laga ganacsado inay noqoto dee waynaynu weel u tolanaa runtii astaamaha ayay u tahay hudheelkan maanta aynu furaynaa ee xaaji maxamed siciid iyo shirkadda dahabshiil ay sameeyeen waxay astaan u tahay berbere iyo koritaankeeda ayay astaan u tahay inaynu dhinaca wanaagsan u soconno ayay tusaale u tahay waxay tusaale u tahay dhulka berberee kacaya iyo dayrarkaa waaweyna la xidhayaa waxay markhaati ka yihiin siyaasaddii aanu qaadannay ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan nagu hogaaminayey ee madaxweyne ku-xigeenku nagu hogaaminayey ee aanu kaaliyaasha ugu ahayn ay ahayd siyaasad hana qaaday ayay muujinaysaa ganacsiga gaarka loo leeyahay dalkan wuu hana qaaday ee shirkadda dahabshiil ay kow ka tahay wax badan bay dalka ka qabteen shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsiga waxaa sababay nabadda somalilan ka hana qaaday dowladnimada bisaylka ummaddeeda waxaa sababay siyaasadda xukuumadihii kala dambeeyey ay ku dhiirigelinayeen oo aanu ka midnahay annagu waxaa gaabis badani ku jiray dhinaca public sectorka hantida la wada leeyahay ganacsiga la wada leeyahay oo dowladnimada iyo kaabayaasha dhaqaalaha xukuumaddan madaxweyne axmed siinaaya iyo cabdiraxmaan saylici madaxda ka yihiin waxay ku tallaabsatay inay kaabayaashii kor soo qaato darka ceelka laga dawlinayay ee dhinaca keliya jaantiya jiibtu ka socotay ayaanu annaguna dabcan inaanu xoojinno oo dhinaca ummaddu waxay leedahay inaanu kor soo qaadno taasaanu annaguna wadnaa halkan waxaa laga dhisi doonaa deked weyn oo caalamiya waddadii berbere iyo hargeysa oo waddo casriya baa la dhisi doonaa muddo 3 sannadood gudahooda qarankani wuxuu insha allahu tacaala noqon doonaa meel ummad badan isugu timaado oo ka badan ummadda somalilan taasaynu wadnaa himiladaasaynu higsanaynaa waa runtii horumar wanaagsan inaynu soo dhaweyno weeye
intaa markaan intaa kaga baxo waxaan isleeyahay saaxiibkay Cabdilaahi markii la weeyday hudheelka aanu soo galayna la tustusayay ayuu qol baan loo furo sariirtiina ku fadhiistay saas uu eego quruxdiisina ma sha Allah baa wixii wanaagsan uu bogay waxaan islaahaa uu marxaati furaya wuxuu oran doonaa war wallahi nimankii reer Bariil baxo mar haday tuushna keeneen horta inta saaka uu ku bakhaylay waxaan leeyahay boqorku si wanaagsan buu kaftamay kulli iyada lafteedu waxaan isleeyahay wuxuu berbera carabka uga adkeynayay mala reer ceergaaban xooga loo soo dhaweeyay buu islahaa oo boqorku de ka mid yahay wuxuu ahaa ganacsadana waa ahaan jiray dariirkaana waa eegay qolada berbera wax ka halqaftayna ma ahayn laakiin cashiimadu berbera waqti dheer bay runtii marba in soo qaadanaysa inay ka dhamaato waxaan ka marxaati kacayaa halkani marsadii qaranka ahayd 93 markii dawladnimada Soomaaliland la dib loo soo yeegleelay ayaa dekedan la qarameeyo hantideeda qarankana lagu waday deeb cashiima ka qaadbay xaqiiqdii waxa horumar baanu ka wadnay farabadan dekedii baanu ku wareejinay shirkado waaweyn oo dhisa bulshada saaxil way nala shaqaysay dareenkana waa soo dhaweysay dood adag baa nagu dhex martay dagaal qaraad ayaa nagu dhex maray dad badan oo siyaasiyiin arinta annaguna waxaanu wadnay geediga horumarka iyo maalgashiga inuu ummadda u soo jiidno dadkana wuxuu waday inuu nashuushadeeyo wixii wanaagsan aanu wadnay bulshada saaxil waxay taageertay ra'yigii caafimaadka qabay ee horumarka horseedka ahaa ayay taageertay waa cashiima ka qaad weeye waa bisayl cashiimada ka soo horjeeda halkan hudheelo horaa laga dhiso waaweyn oo Cabdilqaadir Xaashi ka mid yahay Mansoor oo meesha ugu weyn maanta magaalada barxadeeda haysta cashiima ka qaad bay laftiisu muujinaysa Xaaji Maxamed Siciid Ducaale halkan de hore uma lahayn lacagtiisu ku iibsaday iibsiga uu iibsaday inay u suura gashay qudheedu de waa bisayl iyo cashiima ka qaad baan leeyahay waxaan leeyahay marka wax badan baa qabsoomay boqorkana tiisa waxaynu ka soo qaadaynaa tala iyo dardaaran iyo tirtirsi ayaynu ka soo qaadaynaa hadal xilif iyo xumaan leh ma ahayn kaftan bay ahayd waxaan kaga baxayaa ganacsada dalka waxaanu ku dhiirigelinaynaa oo ugu baaqaynaa in ay ganacsiga sii kordhiyaan oo wax qurux badan oo casri ah oo dunida adeeg fiican bixiya oo adduun badan baa inoo iman doona aynu weel u samaysano inay meel walba ka dhisaan oo dalkooda aaminaan ayaanu ku dhiirigelinaynaa waxaanu leenahay war lacagta dhulka faraha badan aynu gelinayno ee xidhayna boqolaalka kun ee dollar iyo malaayiinka war lacagta aan gelino wax inooga soo noqdaanoo hudheeladan oo kala iyo cusbitaalo waaweyn oo 5 star oo kala baynu baahanay oo noocyadaas oo kala oo qiimo weyn oo aynu kaga maarano kuwin dibadaha u tagayno runtii waxaan leenahay ganacsiga noocan oo kala anagu waanu ku faraxnaa mar shaqo abuur buu sameeyayo dad muwaadiniin baa shaqo ka hela ila dawladii dalkaanu nahay waanu ku farxaynaa iska daa inanka ka shaqeeya cashuur baanu ka helaa boqolkiiba 6 baanu mushaarkiisa ayaa qaranku ku leeyahay adeegna waa laga helaayo ummad badan oo shisheeyaaba ku soo dhiirinayso ku soo degaysa waxana lagu yaabaa maxaa dhismayaa leeyihiin taana waa ugu farxaynaa waxaan leenahay Xaaji Maxamed Sucaad Ducaale waa bogaadinaynaa iyo shirkadda Dahabshiil Group ammaan badan uma baahna waa la yaqaanaa waxay dalkan ka qabteen maaha oo kaliya hantidooda gaarka ah wax faa'iido ayuu ka helaan oo kaliya kama qabtaan horumarka dalka ay ka qayb qaataan waa cashuur bixiyaal mashaariic badan bay sanad walba miisaaniyadooda ayay ku jirtaa inay wax ku daraan mashaariicaha guud ahaan dalka laga wado waa bogaadinaynaa ganacsatada badan oo la midina waa jira kuwa u baahan inay ku daydaana waa jira dawladuna way kala taqaan ganacsatadeeda waa ubadkeedii shacbigeeduna uu kala yaqaan waxaan leenahay hambalyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum